ilaa iyo maalinta dabka baydho waxaad maqlaysay ina yar baa la xaday heblaaya inanteedii rid sidii kuwii hebel kala reerkaas inan baa ka maqan ina yar baa la xaday ama waa lagaga sheekeyn jiray hablaha waa la xadaa caruurta waa la xadaa ganacsiga dadku weligii wuu jiray laakiin imika wuu soo xoogeysanaya wuuna soo xoogeystay saaid buu usoo xoogeystay sanadihii u dambeeyay burburada dalalka islaamka ah ee aan hablahooda hore loo heli jirin ama aan caruurtooda hore loo heli jirin maogtiin dunida wax cusub baa aada u xiisa geliya wixii aanay hore u arki jirin marka xaditaanka gabdhaha yaryar ee caruurta ah wuxuu qeyb ka yahay ka ganacsiga dadka ee hadda maaragtay casriga ee socda markaan Qobrus tagay waxaan kusoo arkay horta waaliga idinka sheekeeyay idinku lahaa waxaa jiray shaaracyada in la isku weydiinayo qofka madow laga aaminsan yahay gabadha madow inay tahay sharmuto jidhkeeda iibinaysa oo waxaa dhici karta mararka qaar inta lagu yimaado in lagu qiimo lagu sheego lagu dhacday Cyprus markaan joogay in nimaninta isaga ka yimaadaan ay ku dhahaan 85 euro ama 100 euro oo tirahdid fooba qeyrsto ma garanaysaan taasi waxay ka timi waan baaray markaa waxaan is weydiiyey waay maxay u aaminsan yihiin qaaradan dadkeedu waa sharmutooyin dumarkeedu qaaradan waay markaa waxaan raadiyey qolo group la yidhaahdo share history qolada activistiga ah ee magaalada dadka activistiga ah ee magaalada degan kulan baan ka qayb galay 3 cisho qaadanayay Nicosia waxaan soo ogaaday in uu Cyprus ka socdo sex handle human traffic wax la yiraahdo bini aadanka in laga ganacsado in caruurta Afrika hablaha reer Afrika laga soo xado in loo soo ballan qaadiyo loo soo sameeyo lagu yiraahdo jaamacad baa lagu geenayaa isku waxbarasho lacag baa lagu geenayaa Yurub baa lagu geenayaa lacag ku shaqeynaysa qaar in la soo aftuubtaba inta khafas madaxa loo galiyo gaar lagu soo qaato deetana diyaarada lagu soo kala bedelo marka niman soo halta leeyahay niman u xil saaran hawshaas caruurta keena waxa la isugu keenaa meel weyn oo hoola kadib baa la qaybsadaa waxa lagaga shaqeystaa marka sax wali baa laga shaqeystaa qaar marka intooda badan kuwa iyagu okay ku ahaa inay yimaadaan ee loo soo ballan qaaday caruurtoodii iyo familigoodii la garanayo ee loo soo ballan qaaday in waxbarasho ama shaqo la geenaya waxa laga qaadaa baasaboorka banaanka ka shaqeeyaan oo ragay la tunta yani way jidkooda iibiyaan lacagtana ma iyagu ma qaadanayaan suu haltaha qaadanaya halay waa deemaysan tahay deynta lacagtan ku soo kaxaynay tiitan marka 10,000 ama 20,000 euro soo xareyso 15,000 euro soo xareyso ayaa lagu fasaxaya kuwa la soo afdo ama hadad saa sameey weydin family-gaaga ilmahaaga walaalka waxa saal wala rogay reerkiini waxa saa yani marka iyagoo aan cid qasbaynin yani amaan cid qori lagu haynin bay shaarica soo istaagaan oo halkaas ay niman ka kaxaystaan qaar kasinooyinka la geeyaa qaar ba hudheelada lagu kareeyaa qaar si walba yani meel walba waxa jira qaar iyagu kuwa la soo afduubtay ahayo kasinooyinka ku xidhan yani hoolal ku xidhan nimanka tijaarta ah iyagu doonaya marba inay yaro aan hore galba u soo sameeynin inay iyagu kow ku noqdaan ayaa si khaas ah u iibsada waxay ku xidhan undergrounds iyaga lama arko xogtaasoo xamaanada kulaga 3 cisho ah Nicosia groupkan share their history la yiraahdo ka soo xidhay marka waxaan ka fikiray tiro gabdhaha reer Soomaaliyeed ilaa intaas la waaya balay qaadataa oo wax la haadaan ku jiri karaan aadna wuxuu adduun wadamo badan buu ka jiraa imika markaan soo noqday xitaa halkan waan firfiriyay Jarmalka waxaan informationkii dad baan kala hadlay waan hay soo baxday halkan baynu ka jiro Jarmalka laftiisu ka ganacsiga dhilaysiga gabdhuhu ama uu ka jira waxa laakiin dadka laga keenaa Serbia iyo Bulgaria iyo dhulkan Yurubtan gaajada baa laga keenaa iyagu nidaam si sharci oo kala baa loo maraayo inta la shaqo la idin geeniyada wara ma garanaysaa dokumentiyada loo dhameeyaa halkan la keenaa marka dambe waxa lagu raaddaa doonaysa wadanka inaad sii joogto lacagtaan ku soo qaadnay tii soo bixi marka suu haltara la yiraahdaa nimanka noocaas ee hablaha jidkooda ka ganacsada ama hablaha iibiya ee barnaamijka noocaas ku shaqeysta magac weeyna suu haltar baa dhaca inta saar rabeyna idin la wadaago
ilaashada caruurtiina gabdhihiina yaryar ilaashada ama Soomaaliya jooga ama Afrika jooga ama halkan jooga ilaashigu ma aha in qori lagu horfadhiyo waa in iyagu waaci ahaadaan waa inaa u sheegtaan inta yaryar yihiin waa in lala socdaa meesha markay meel qabanayaan la raacaa laga warhaya ma aha in jeel lagaga dhiga meel waa inay og yihiin dunida waxa ka socda waa inaad u sharaxdaan dunida waxa ka dhacay love you